السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب قيمة إيه قدرت مدن ما شاء الله مسلمين تميل والباقي جوجان إيه أصحابتي إذا شنال كي يقهرن واحد اللي هي ما أنتوا حنصوب بقضي مع مكة حنوصن جبر قبل كده دك مدن وقنانة حافظ وابري جبر ناس وحاسو جاري إذا جيت جارن كسود عادي لقتي أكل وريجتي سي أسعد عادي مدة دور سنة يا لقتي بيا كجرو لقتي عادي إسكاب فلوسن تاي قبل لق كسكوت عن لحسن يعني جرتا أصحابتي قيمة يقدرين تمدن مسلمين تميل والباقي جوجان وحان ليه هاي قبل ناس وحي أباهان تاي قرقار آد وين قرقار كسو تاي إن أو قبل ناس لقرب قبطو إن شاء الله بإذن الله كريم فضلا وحان إذن ليه هاي قبل ناس حلسو قرب قبطو بليز gabadhaas waxay u baahan tahay garab qabsigeeda ugu muhiimsan fadlan markii haduu alla idmo gabadha waxayna ay aad iyo aad ay xanuunkeeda ugu badan yahay labada lug habeenka ma seexato waxay u baahan tahay qaliin aad u weyn hadda waxaan ku suganahay guriga ayaan ku suganahay waxaan rabaa haduu alla idmo isla maamadii inaan iyo gabadhii warbixintooda idin soo gudbiyo gabadhaas waxa waaye kumaysi dhalanin inay lugihiisaas ay yahaayeen kumaysi dhalanin waa wax ay meel ka soo dhacday laakiin jabitaankii lugta iyo halaawday jabitaankii iyo kabitaankii wixii isku darsamay aad iyo aad haddana waxaan sii gudagalaynaa gabadhii maasha Allah waa tanaa gabadhii alxamdulillaah waa taas gabadhii dhulkaas iska fadhida ma soconayso dhulkaas ay shaqaysaa Suleyqa la dhahaa waa taas Suleyqo ilaahay waa gabar yar ay rabtay inay socoto xaaladeedana waa jeediin hadda iyadaan la hadlayaa waxaan leeyahay Suleyqo ilaahay caafiyo muslimiinta meel walba ay joogtaan Suleyqo la hadal adeer la hadal dadkaaga salaam way cabsoonaysaa waa ciiloonaysaa Suleyqo waa u jeediin waa ciiloonaysaa Suleyqo ma sha Allah asxaabay ana idinku soo noqday lugta waa taas hadda marada ka fiidaayo asxaabtay marka lugta biyo ku jiro fuulkaas u jeedin oo dhan biyo ku jiro biyahaas marka wuxuu u baahan yahay in si degdeg ah qaliin loogu sameeyo maamada hooyadeed ayaa gabadha ma haysto laakiin waxa haysta ayeedii adii muddo dhowr sano ah ayaa ayeedii ay saas ay tahay wax yar soco adeer wax yar soco waakaas waa gurguurnaysaa socod ma jiro gurguurshidaas le waaye waana u jeediin walaalihiga muslimiinta meel walba ay joogtaan gabadha masaakiinta la soo caabiyo fadlan socodar waa kaas gurguurkaas le waaye asxaabay waa u jeedaan xaaladda meesha ay marayso haddana waxaan sii gudigal rabnaa haduu alla idmo maamada ayaan rabaa inaan ka wareysto inkastoo iyadana ay si qeyrootay oo hadalka xataa ay diidin tahay markii la wareysanayo way ciiloonaysaa laakiin waxay tiri way diidan tahay iyadoo ka xun ay leedahay gabadhii waxay leedahay muddo dhowr sano ah way xanuunsan tahay adii 3 sano 4 sano adii muddo oo ku dhowdahay gabadha iyadoo yar oo markaas socod baratay oo wax yar tahay ayay gabadhii meesh ka soo dhacday kabitaan fiican ma helin ala kulli xaal gabadhii asxaabay gabadhii waxa waaye waxay u baahan tahay qaliin aad u weyn maamadina ma sha Allah aad iyo aad u wareystay waxayna ii sheegtay maamada inay si gabadhii ay muddo dhowr sano ah ay saas u dhibaataysan tahay waa gabar 6 jir ah waxay u baahan tahay qaliin waxay u baahan tahay daawo hadda daawadeeda waa daawo oo kulli dalka wax loo qaban karo u maleeyo marka haduu alla idmo waxaan rajaynayaa in muslimiinta meel walba ay joogaan ay u soo gargaari doonaan gabadhaas masaakiinta ah asxaabay waatana maamada waxay leedahay